السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميل والباد شوبتان وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كاي ما انجري معد كنبدي بالشدة ما عند برنامج واحد انو كغا هادلينا بوقشدي مدحوينه حسن شيخ ugu tagay dalka Ethiopia laba cisho ka hor waxa la sheegay inuu weydiistay Abiy Ahmed inuu dalka u qabto Xasan Sheekh wuxuu weydiistay Abiy oo ka tuugay inuu Soomaaliya keeno ciidamo ku dhow ilaa 20,000 oo askari oo la geeyo shabeellada dhexe Hiiraan ilaa galmudug la geeyo dabadeedna halka ay maaragtay xasiliyaan oo magaranaysa kula dagaalamaan al-shabaab oo wixii xasan rabo ay markaa u sameeyaan horta marka hore waxaan mudan inaynu xusuno Ethiopiaanku waa joogaan waddankeena gaday joogaan bay iyo bakool bay joogaan 20 sano ku dhawaad bay joogaan maxay qabteen wax laaliya waxay qabteen iyo waxay noo sameeyeen ma jiraan waxa kaloo xusud mudan inay ilaa 40,000 ku dhawaad oo African troops ay joogaan Muqdisho ay fadhiyaan xalana iyo meelaha shabeellada hoose ee dhul caynkaas ay joogaan maxay noo qabteen al-shabaab inaga ma xoreyn nidaam inooma sameyn dawladnimo inooma hagaajin wax kale inooma tarin xeriyahoodaasay ku jiraan mushahar fiican oo kii wadamadooda ay ku qaadan jireen 5 jeer ka badan bay qaataan waxna ma qabtaan barwaaqi ku jiraan mana rabaan inay dhamaataba waxaan Soomaaliya dhibka inay ka dhamaato ma rabaanba waayo iyaga dantoodii baa ku jirta shaqo iyo income iyo magaciisi iyo istiraah bay ku jiraan waxay marka wax kuugu hagaajinayaan waxa kaloo mudan in la xuso Ethiopiaanku hore inoogu yimaadeen Muqdisho waa tay yimaadeen maxay noo qabteen waad ogeydeen sida Muqdisho dadka Soomaaliyeed ugu bahdileen oo ugu dhibaateeyeen oo ugu waxeeyeen waad ogeydeen dhibaatooyinkay halka inoo geysteen ilaa markii dambe dadka Soomaaliyeed adkeysan waayeen oo ku kaceen Ethiopiaanka maanta imaanaya iyo kuwii waaga joogay ama kuwa hadda gada jooga ama bay iyo bakool jooga maxay ku kala duwan yihiin arinta kaloo xusuda midan waxa weeye Ethiopiaanku maxay kuugu qabanayaan maxay 20,000 oo ciidamo kuugu keenayaan maxay kuugu sameynayaan taas maxay ka faa'iideen dawladuhu markay waxba isweydaan maslaxad baa jirta maxay taa maslaxadu ma badda Soomaaliyeed baa u saxiixaysa Xasan Sheekh maxay kuugu qabanayaan ciidamay keenayaan qalab bay keenayaan kharash baa ka baxaya maxaan ku yiraahdaa Abiy dagaal badan buu ku jiraayo meel walba colaad baa uga furan oo furamihiisiiba ku furmaya maxay taa dantu ka helaya adiga markuu hawlihiisa oo dhan baaylihiyo oo magaranaysa dhaqaalihiisa iyo dadkiisa iyo magaciisa halka ay Soomaaliya keenaan muxuu ka helaya waa in la isweydiiyo midda kale dadka Soomaaliyeed ma aqbalayaan waa taqaanaa galgaduud iyo Hiiraan iyo magaciisi oo dad dagaalyahana ma aqbalayaan Ethiopian inay maartay bahdil iyo magaciisi ku sameeyaan inay dumarkoodii caruurtoodii iyo reerahoodii iyo raggoodii dhibaateeyaan ma aqbalayaan waxaas wax shaqeynaya ma waad ogtahay horena uma shaqeyn maantana ma shaqeyn horena uma shaqeyn maantana ma shaqeynayaan berrina ma shaqeynayaan waxaana muuqata dhowr iyo 30 sano oo aynu baaba'sanayn iyo 20 sano ka badan oo ciidamo shisheeye iyo magaciisi inala joogeen inayna waxba ka baran madaxdii Soomaaliyeed iyo hormuudkii Soomaaliyeed inaanay waxba kororsan waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa hu aadan lahayn kuma dhaxantiro gargaar dibadda kaaga yimid iyo taakula dad kale wadana kuma xoreynayso horumarka kuma sameynayso horumarka iyo nabadda iyo wada noolaanshuhu wuxuu ka imaanayaa dadka Soomaaliyeed dhexdeeda marka madaxweyne Xasan wuxuu awoodi kari laayahay inuu la hadlo dadka Soomaaliyeed oo wax kala dhaxeeyaan oo yiraahdo warkaalaya aan wadanka u tashano oo uu ka mid noqdo iyaga uusan iska weynayn uusan awood dheeraad sheegan uu maslaxada ka eego war maxaynu qabanaa dantu xagee ku jirtaa laakiin maraba Xasan wuxuu rabaa inta Ethiopian wuxuu rajaynayaa isagu inta Ethiopian cid kale wadanka u qabato inuu dictator iska noqdo nin kaliya taliya oo wuxuu rabo ma garanaysaa sameeyaa nasiib daro wuxuu san ogeyn inaan cimri ku simaynin taas
ما هني صدق جيرة وأفرتن سنة وهر لإيجا يموت وإسلا أنت صد وحبات قبائل كان مجلسي عينك معها وتدبا تنجير 5 سنة هدو شقية أما 8 سنة نسيب بوليه وأن وقتها الصومالي أرميد وسوي شيء تمام محاد 5 سنة كو جاريسا 6 سنة هر لبعض وضن كسوه جامس محاد جارت wax macna leh oo la taaban kara ma aad gaarin maxaad u gaari weyday halku meeshu ku jira ka bilaabi maysid waxaad leedahay aniga kaliya wax garanaya aniga kaliya wax sameynaya dadkii kalena waxay ku leeyihiin ma sameynaysid waxna ma sameyn kartid waa dhab hataa haddaad sameyn kari lahayd ma sameyn kartid way wadanku waa qaybsan yahay waa lagaa hub badan yahay waa lagaa dad badan yahay waa lagaa dhaqaale badan maxaad sameyn kartaa marka waxa ma sameyn kartid لكن دنت waxay ku jirtay iyo maslaxadu waxay ku jirtay madaxweyne xasanow inaad aqbasho inay Soomaali isu timaado oo go'aan gaarto oo la is aamino in la is aamino marka hore oo wax lagu heshiyo qofna aanu maaragtay xadin ama uusan ma garanaysaa hadhow meel uga dusin ama uusan khiyaamin ama uusan dhagar geysan war lilaahi aan ku wada socono saan wax u fulino oo maalin waxaynu qabano aynu qiimeeyno ma gaarna meeshaynu rabnay war maxaa inaga qalloocsamay war maxaa aynka laakiin Ethiopia iyo Kenya iyo xagga wareeg iyo Imaaraad iyo kan iyo Banada iyo war walaalo waxba ma qabanayso oday baa tahay wadankaas waqti baad u heshay inaad maamusho ha uga tagin wadankaas dhaxal xun ha uga tagin wadankaas iyo kala burburin gacantaada iyo ku burburin xasano war dadka Soomaaliyeed arintu walaac baydin ku haysaa Ethiopian baa wadankii la keenaya walaac baydin ku haysaa maxay tahay inaanu qabano Ethiopian hadii la keenayo baarlamaanku door ma ku leeyeen xasan ma horgeynayaayo ma ka meel marinayaan mise wuxuu rabaa inuu kaliya iska muuqansado runtii Ethiopian la keenaa dalka aniga balaayo iyo shar hor laba ila muuqata una malayn maayo xal inay keenayso Ethiopian kuma dhimanayaan sida kuwa gada jooga aysan kuugu dhimanayn ama bay jooga ayaana kuugu dhimanayn oo kuugu hagar baxayn sida kuwa xalanay jooga aysan kuugu hagar baxayn ayaana kuugu hagar baxayn maxaynu isu yeelaynaa marka Soomaaliyeed maxaynu isu yeelaynaa maynu inagu is aamino oo danaheena ka shaqeyno dad noqon Cabdi Maxamuud Qalla iyo barnaamijkeedin ka imaan jiray macadka nabadda bulshada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.